page kana follow deh, YouTube kana subscribe noo saara, kule Twitter kana u jeedina wad booqa karteen. Noole walba uu Allah naf ku simay ayaa haddana u kala siiyay aqli kala duwan, wuxuu kala siiyaa arsaaq kala duwan. Hadda waxaan u wada jeednaa waa libaax iimaan la oo gaajadu ayaa iimaanka oo dhan ka qaaday. Wuxuu la indha taagaya meesha uu hilib uu ka heli lahaa. Hadda wuxuu arkay meeshii uu gaajada oo indhaha tirtay uga bixi lahaa. Wuxuu halkani ka qodanaya doonfaar warla oo gurigiisa iskaga dhex jira, laakiin doonfaarka libaax keli ma cuni doonee, xitaa waxaa alafan doona dhurwaa oo jiilaalka iyo bus indha tirtay ayaa isna hunguri soo galay oo leh saaxiib, alafkan oo Allah ku siiyay aniga aan kula qaybsado. Libaaxina kuma adkeynine ileen way wada baahiyihiine wuu ka ogolaaday, wayna wada qaybsadeen. Sida u jeedaanba libaaxa waxaa lagu tiriyaa xayawaanada ugu geesisan, waxaana lagu yeeraa boqorka xayawaanada. Marka adigoo dunidan boqorka noqon kara maxaad bisad iskaga dhigaysaa? haddaan nagu cusubtahay nagu soo bir, saaxiibadada la wadaag muuqaalkana leegta ku boob si aan u helno malaayiin qof.